أحمد مدوب oo si adag ula hadlay dowladda federaalka kadib markii la doortay maanta. haddaba madaxweynow waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro. sidoo kale intaas kuma ekeenin wuxuu sidoo kale ugu hanjabay haddii dowladda ay qaato tilaabo tusaale ahaan ee ciidan iyo waxyaabahaas inay meesha geyso inay ku dhici doonto Xasan Sheikh tii ku dhacday 2013 waxaa la ogaa 2013 in dagaal siyaasadeed uu dhex maray Axmed Madoobe iyo Xasan Sheikh oo xitaa ay isla gaartay gacan ka hadal halkaasna Axmed Madoobe ku haray Jubbaland ilaa ay maantana uu maamulayo 2013 dowladda markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheikh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday. sidoo kale waxaa la xasuustaa 2019 inay farmaajis qabteen sida Xasan Sheikh oo kale haddana uu Axmed Madoobe sidaas ku guuleystay ilaa ay maantana uu isagii ka talinayay maamulkaas weli waxaan xasuusanay farmaajo in uu qabateen aad u adag uu saaray dowladda Jubbaland oo diyaarad intii xamar laga raacay Jubbaland. bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo oo diyaarad intii xamar laga raacay Jubbaland in lagu tagi karin waxyaabo fara badanna ay halkaas uga baaqdeen welina waxay ku madax adeegeen dowladdaas inay sii taagnaadaan Axmed Madoobena maalinba maalinta ka dambayso uu kursiga soo fariisto welisan hore u sii wado haddana maanta oo ah taariikhda 2024 ay dib isku qabteen Xasan Sheikh iyo dowladdiisa isla sidii ay ugu guuleystay isagoo markaas ugu hanjabay haddii tilaaf kala soo qaadaan in dhibaatayntaas ka badan ay ka dhalan karto. Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaas mas'uul ka ah lama aqbalayo ciidanka ahayn oo amniga faragelisa. hadalka Axmed Madoobena wuxuu u muuqday mid runtii agdugleen ah taasoo aan dhihi karna markaas wuxuu uga agdugleynay ra'iisul wasaare Xamse iyo dhammaan dowladda federaalka oo idin haddaba waxyaabaha cajiibka ah maanta Axmed Madoobe ka sheegay meesha waxaa ka mid ah in dhowr jeer ay dowladdu ku eedeysay ninkaas in uu u shaqeeyo wadamada dariska tusaale ahaan Kenya oo kale balse isagu hadalkaas maanta jawaab ka baxshay isagoo leh markaas waxaan ahay Soomaali haddii aad isu soo xadgudubtiinna waxaan isla nahay Soomaali ra'iisul wasaaraha isagana waxaan ognahay inuu khilaaf aad u weyn dhex yaallo taasoo xitaa maamulkaas ay yiraahdeen ra'iisul wasaare Xamse magaalada Kismaayo iyo dhammaan Jubbaland oo idil lug ma soo saari karo sababtoo ah khilaafyo fara badan ayaa dhexdooda yaala isagana ra'iisul wasaaraha wuxuu ula hadlay si hoose iyo si koraba in ay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan ayna ku soo biiraan maamulka federaalka maadaama maamulka Jubbaland uu ka tirsan yahay dowladda Soomaaliya noqdaanna kuwa ka sii mid ahaada Soomaalida iyo sidoo kale amarada dowladda ka soo baxo inay ku dhaqmaan laguna dhaqo dadweynaha Jubbaland ku nool sida magaalada Muqdisho oo kale balse sidaan ognahay Axmed Madoobe ayaa hore u sheegay in 25ka uu dooran doono dadkii isaga dooran lahayd taasoo uu ka dhabeeyay 75 xildhibaanna uu sameystay iyadoo isla markaas uu balan qabtay 27 in la dooran doono oo sidaas lagu sii doortay madaxweynaha Jubbaland isagana uu dib noqday haddaba maalinta ka dambaysa waxaa halkaas ka sii ogaanaynaa oo aan ka sii baranaynaa mid ka mid ah maamul goboleedyada in maalin walba uu problem cusub keenay taasoo runtii qalqal ku abuurayso bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha joogaan waxaanu mar walba ognahay inay haddaan nahay shacab dadka ku sugan Jubbaland dad ku sugan Puntland iyo dhammaan meel walba Soomaali ku sugan tahay in ay israacsan yihiin ay midaysan yihiin kaliya wuxuu khilaaf ka jirana waa dowladaha kala maamulo meelahaas nin kastoo maamul madaxweyne ka ahna wuxuu rabaa isaga amarkiisa inuu ku dhaqdo meeshaas halka dowladda federaalka ay rabto in amarka dowladda Soomaaliya ka soo baxo in halkaas lagu dhaqo taasna waa khilaafaadka ugu weyn meesha uu ka imaanayo haddaba waxaan isla arki doonaa wixii ka soo kordho maamulkaas Jubbaland maadaama Axmed Madoobe hadalla aad u adag oo goodis ku jiraan dowladda federaalka halkaas ka yiri sida maamulkooda u dhaqdaan iyo in la soo fargeliyo dhammaan waxyaabahaas wax isku arki doonaa muuqaalada soo socda waxaan rajeynayaa intaan la soo gaartay sidoo kalena aad muuqaalka sii shargalaysa si asxaabtaada uu sii gaaro haddaan su-aasha ugu dambeysay muuqaalkan ku weydiina adigu ma raacsan tahay in Axmed Madoobe mar labaad oo Jubbaland ka noqdo madaxweyne aan waxaad ka mid tahay dadka khilaafsan waxaan rajeynayaa qaybta comment fikirka wadaag doonto halka joogtiin Soomaali Maxamed Waani Axmed Aaka waxaan leeyahay waan jeclahay assalaamu calaykum